shan calaamad oo haddaad isku aragto ay ka dhigan tahay inaad qabto xanuunka sonkorowga ama kaadi macaanka ama aad halis khatar ugu jirto. Calaamadda ugu horreydo waa in habeenkii xilliga dambe ay hurdadu kaa xumaato. Tusaale ahaan xilliga dambe 10 saac ama 9 saac markii la gaaro haddii aad inta badan isku aragto inaad hurdada ka soo toosaydo oo hurdadii halkaas ay kaaga eg tahay ama hurdadii ay kaa qasanto waxay ka dhigan tahay macnaheedu in sonkor aad u badan jirka ku jirto. Sonkortaasi oo keenayda in neerfayaasha jirkaada ay kicin ku sameynayaan kadibna halkaas ay ka imaanaydo in qofkii uu hurdadii ka tago. Haddaad isku aragto marka in xilliga dambe habeenkii hurdadii aad halka u tagaydo macnaheedu waxay ka dhigan tahay waxaa laga yaabaa ama khatar ugu jirtaa xanuunka kaadi macaanka. Calaamadda labaad waa oon badan iyo kaadi badan. Haddii aad isku aragto oon badan oo kugu cusub iyo kaadi badan oo kugu cusub macnaheedu waxay ka dhigan tahay in jirkaadu uu biyo badan qasaarinayo sidoo kalena kelyaha ay saaran tahay culays badan taas oo ay sabab u tahay sonkorta badan ee kelyaha laga saarayo maadaama dhiigga sonkorta ku baahan tahay kelyuhu waxay saarayaan sonkor aad u badan kadibna biyo badan ayaa sii raacaya. Marka oon badan iyo kaadi badan ayaguna waa calaamad kale oo suurtagal ka dhigaya ama in xanuunka khatar ugu jirto. Calaamadda saddexaad waa inaad jeclaato waxyaabaha ka kooban carbohydrate. Carbohydrate waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo sonkor ay ku jirto. Haddii qofku uu khatar ugu jiro ama xanuunkii sonkorta uu hayo uusan ka warqabin maadada insulinta ee sonkorta geeyda unugyada jirkeena si ay u baahi tirto waxaa dhacayda inay yaraato maadaama inta badan qofka sonkorow qaba insulinta yar tahay kadibna unugyada waxay soo diri doonaan fariin ah in sonkortu ay ku yar tahay. Halkaas marka waxaa ka imaanaya qofka inuu qabato baahi badan iyo jeclaasho uu jeclaanayo waxyaaba carbohydrate ama waxyaaba sonkor ku baahan tahay inuu isticmaalo. Marka haddaad isku aragto inaad aad u jeclaanayo markasto waad craving ku dareemaydo waxyaaba macaanka inaad jeceshahay oo kale waxay ka dhigan tahay inaad xanuunkii khatar ugu jirto ama aad qabto. Calaamadda afraad waa inaad isku aragtaa cortisol aad u badan. Cortisolka aan mataqaana markii hore u jiri jirin laakiin hadda kugu cusub macnaheedu waxay ka dhigan tahay in unugyada ama xeedada jirkeenu ay qaadayaan sonkor aad fara badan halkaasina mataqaana caabuq uu ka imaanayo maadaama sonkortu difaaca jirka ay yareedo sidoo kalena meelaha sonkortu ay ku baahan tahay nabraha iyo mataqaana infectionka iyo caabuqu aad u jecel yihiin inay ku samaysmaan. Haddaad isku aragto cortisol aad u fara badan ama nabro korkaada ka soo baxay macnaheedu waxay ka dhigan tahay in ay jiri karto ama aad khatar ugu jirto in aad sonkor aad qabto ama haddii aad isku aragto cortisol marka aad u fara badan waxay ka dhigan tahay inaad qabto ama halis ugu jirto xanuunka kaadi macaanka. Sidoo kale calaamadda ugu dambeeya shanaad waa inaad isku aragto kor xanuun aad u fara badan. Haddaad isku aragto murqo xanuun iyo daal fara badan oo markii hore aan isku arki jirin macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaad sonkor qabi karto sababtoo ah inta badan waxaa la sheegaa sonkorta aad u fara badan waxay saameeyaan neerfayaasha. Markii neerfayaasha ay saameeyaan waxaa dhacaya inay mataqaana neerfayaasha inta quudinayaan sida murqihii eerida u dhawaa dhammaan uu xanuun qofku isku arko. Marka inuu qofku mataqaana isku arko murqo xanuun gargooshi xanuun iyo daal u fara badan shantaas calaamad oo aan sheegay waxay ka dhigi karaan suurtagal ama macquul in qofku sonkor uu qabo ama halis ugu jiro. Intaas ayaan kusoo koobnaa mawduuca